la qalbiga maanta qisadan inoo wado anigoon kasii sheekanayaaba qalbigu isii xanuunaya. Haddii aad dhegaysatana waan hubaa inuu beerku ku xanuuni doono. ereyga hooyo markaad maqasho waxaa kugu soo dhacaysa heestii ahayd amantaada hooyoy afku koobi kari waa awalkaaga hooyoy bini aadan gudi waa. alla run badana wiilka fanaanka ahi. haddii halka inoogu joogto maanta waxaynu joognaa wadanka Urdun. sanadu waa 1975. gabadh la yiraahdo Nadia markii ay 1975 waxay ahayd dugsiga sare. maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday inay aaday macalinkii English soo tiri xiisadu ay ugu yar adagteeday muraajac macalinkii wuxuu yiri iskuulka kuma soo noqonayo ee waxaan doonayaa inaad gurigayga igu timaado. xasbunallah nin baa gurigiisa loogu tagaa heer wuxuu miskiinsana Nadia gurigooda ha orada tiraahdo macalin baa kiibaan aadayaa oo wuxuu igu yiri ii kaalay maxay markaad xiisadaha dhameysid. gabadhii markay gurigii gashay wax yar la joogay gurigiiba soo xidhay waa kufsaday. casharkii muraajacada maaha cashar kale ayuu u dhigay. gabadhii oo ooyeysa reerkooda u timi. reerkiina dee cado inay ninka dilaan ama uu guursado ayay soo istaagtay. sidii loo wareegay wax ka soo wareegtay ilaa 3 bilood waxaana ka soo baxay gabadhii uur. ninkii maxay tahay macalinkii ha yiraahdo waa guursanaya gabadha laakiin uurka laga soo rido. reerka maxay ku jawaabeen mid garanaysaan? war head dil baad sheegtay haddii aad doontid shiilo ilmaha oo adiga dhalay oo gabadha naga horkaxee. gabadhii waxa guursaday ninkii ilmihiina waa ka soo riday. naxariis darana kufsi ilma ka soo ridna maxaarba. waxaan idinku iri waxay tiri gabadhii markii guriga u tagtay ninka wuxuu noqday nin bakhayl ah. wax walba waxa ka daran bakhaylnimada. tan adduunka baaba lagu sii cadaabay. dilka ugu daran oo u dheer afxumada. tan waxay markii hore waalidkeed habaar uga dhintay intaasoo imaaradood mise iska intixaan adduun. ayaana waxba hadalka idinku daaline. gabadhii markii dhowr sano isla joogeen waxa u dhashay wiil iyo gabadh. wiilkii gabadhina waxay noqdeen wiil iyo gabadh waaweyn. waxa dhacday in markuu wiilkii iyo gabadhii kureeyay noqdeen ninkii wadamada carabta uu uga soo baxo shaqo macalinimo. markuu shaqo macalinimo uga soo baxeen gabadhii buu iyo wuxuu ku xaajeeda waran hadii aan wadamada idinka soo shaqeeyay halka Urduntiina iska joogtaan. waxay ta khayr qabe carar ana dharka ku diyaarinayo waa oroday. khaatibaaba laga taagan yahay bakhaylnimadiisii iyo maxay ahayd afxumadiisii iyo gacan ka hadalkiisii uu isna la tashanaya. carar bay tiri intaana gacantayda kugu dilin inta ma oran wax tiri waayay xaashida waa ku garab galaya qalbigaasina waa farxaya. iyaduna waxay iskaga dhigaysaa naagta ka murugaysan. bala ku gashay carar dheh kii waa rumaystay waa iska tagayo. gabadhii dhowr bilood markay soo wareegtay bay isbarteen. waa tagsiile wax dhex maray. allah laqaad bal hadda waxaas oo dhan bayba soo martay. hadduuba balaayada ilaahay ka kaxeeyo nin dambe mii ka cadhooto. waxaan kugu yidhi halkii baa dhex mara gurigiiba soo xiraysato. mayna odhan karaynaa dee iska fahan waxba lama tafaasiil lama gale. waxaa dhacday in gabadheedii ogaato islaantiina dee ka naxdin. gabadheedu say u ogaataa bay tiri ninkii bay tawariyaa saaxiibkaa igu yeedh. saaxiibkii maxaad ku odhanaysaa? war adigu igu yeedh bay ku tiri. saaxiibkii waa loogu yeedhay. waxay ti soo dhawow inantaydan aan doonaya inaad jeclaysiisid kabacdina dee xidhiidh idin dhex maro. xidhiidh haddaan idinku idhi dawaad iska fahmaysaan bela idin dhufsata miyaan idin odhane. xidhiidh lasii yani tafaasiil dambe sii geli maynoo dheere. islaantiina waxaan iskaga dhigayaa sidii mid kadisiisan ku ogaatay si ay dee igu tiraahdo ceebteeda igu asturaan idhaahdo aynu iska ceeb qarsano hooyo. islaantii sidii ayay yeeshay. inantiina waxay taa lahooyahay sheegan waxay tiri hooyo soo kaxaysan maxaaba sheegidba keenay. soo kaxayso qolkaaga la galay qolkaygaan la gelayaa.
halkii iyagoo islaantii iyo inantii hooyadeed hadhurka tunta iyana aad iska barataaya wax walba halkaa lagu samaynayo ayaa wiilkii ogaaday. wiilku waa wiil degan, waxbarashadiisana ku wanaagsan, laakiin de maxaa Naadiya iyo baaba dhalay iyo gabadhan kalaalo walaale waxaa dhacday wuxuu yidhi maxay hitay wiilkii baa dee qaati ay ka taagnaatay. war orod ayayada awowaha aad may waa soo taagan yahay, saaxiibadaa raac, dhibaato isna hal mid buu qabayoo gurigaa kama baxayo. ilaahay de binaadamka ma dhammaystirine, inkastoo dee dawada wax lagu farxaba aan ahayn. inay de ilaahay u mahadnaqday ahayd wiil halkaa u joogo aan raacayn dubjirtan oo balwad baranayn. ninkii tagsiilii bay la kaashato waxay dee wiilkayga saan ka yeelaa. ninkii wuxuu yidhi naanaa tala ku siinaya wiilka waxaan kuu keenaya mukhaadaraada cunada ugu dar, isagoo waa shabaad arkaysaa. halkii ka diidi lahayd ila hooyo naxariis baa lagu ogaayay. waxay tiri keen aan iska aamusiiye. wiilkii bay mukhaadaraadkii ugu dartay, shaahii cunadiiba ugu dartay. wiilka waali oo kale ayuu bilaabay inuu yacni sida qof waalan oo kale, laakiin guriga kama baxayo. ninkiina wuxuu yidhi maxay tahay hadduunu guriga ka baxayn maxay tahay talo kale ayaan soo dejinayaa. adigu caawa waxaad siisaa mukhaadaraadka, berrina maxay tahay aniga ayaa aqaana saan u galaayo. mukhaadaraadkii ma siisay wiilkii. ninkiina albaabkii ma ka furtay. ninka qolka wiilku galay, wiilkii baceejo nafti kaga saaray. inantii waa ogtahay, hooyadiina waa ogtahay. wiilkii baa la qaaday, waa lasoo qariyay, waa la aasay. haddaba waxaa jiray oday wiilka awowgihiisa oo aabihii dhalay oo mar walba waraysan jira u iman jiray. maalin walba waa lasoo hadlanaa, inankii ma jooga maanta, waa maqan yahay, maxay tahay wuu baxay. maalinka dambe odaygii shaki baa galayoo magaaladii buu yimi. guri uu magaalada kulahaa kusoo degay. reerkiina waa soo booqday. haye ma fiicantin inankii inankii wuxuu aaday wadamada carabto, aabihiina waa ka dhuuntayoo adugu xatee khiyaaliba ugu sheekaysay. inantii birina walaalkaa iyaduna sidii hooyadeed ku hadashay ayay ku hadashay. ma garanayo oo maxay wiilkii ma joogo, waa wiili bere hore dileen. bele ku degtay miyaan ku idhaahda. waxay tiri maxay tahay odaygii baa de wiilkiisii wacay, wuxuu u diray waraaqo. wuxuu yidhi inankaygii wada inankaagii ma ogtay in wadamada carabta jiro, inankaagii aanu wada joogin. odaygina de werwar baa galay. wuxuu yidhi waan imanaya. islaantii buu wuxuu usoo diray waraaq. wuxuu yidhi maalin heblaayaan imanaya ee saa u ogow. Naadiya cirkii iyo dhulkii waa kusoo yaraadeen. maxay ku hadlaysaa? waayahay bay tiri xaaji. maalinku diyaaradda kasoo degaayay waxay u dirtay tagsiilihii saaxiibkeed. tagsiilii baa garoonka ugu tegay. wuxuu yidhi soo dhawow, xaaskaaga ayakaa soo dirtay, deena keen gurigii baa la keenay. tagsiilii markaa midkan dibaddu istaagay. naadiya soo dhawo, xaaji soo dhawow, inantii baa soo dhawo, saabe soo dhawo. odayga intaanuba hadlinoo wiilkii wuxuu u fiirsan baa shaah baa loo keenay. xaaji bal shaah oo isdejiyo. shaahii waxaa loogu daray mukhaadaraad. odaygina wuxuu bixiyey waali. kii dabadda taagnaa tagsiilii baa soo galay. odaygu baceejo nafti kaga saaray. odaygii ma ogaa inankiisu wuxuu kuyidhi waa imanayaa, laakiin maalintuu imanayay xaaskiisa kaliya uu sheegay. iyaduna tagsiilahan waxay ugu dirtay si aan magaalada cid kale uga ogaan inuu ninkeedii yimi. waxaa dhacday in odaygii waraaqdii iskaga diro wadankii inankiisu ku noolaa. markii waraaqihii bateen ayaa nin guriga la deganaa oo aan isaguna wadanka u dhalin oo macalinimo ku yimi, ay guri isla karaysteen, iskaashadeen, ayaa wuxuu yacni waraaqahan badan buu ka yaabayo. wuxuu ninkii minuu wadankiisii aadin. wuxuu u wacay mudiirkii ama maamulihii iskuulka ka shaqayn jireen. wuxuu yidhi maamule, dee ninkii saasaa loogu soo diraya waraaqo. wuxuu yidhi waraaqa ii fura, mise odayga aabihii weeye, lambarkiisana waa ku qoran yihiin. markaa lambarkii baa la wacay. wuxuu yidhi inankaagu maalin heblaayuu yimi, eeda inankiina midha magaaladu miyanu mar hore idin iman. odaygu wuxuu yidhi iima iman. de wuxuu yidhi yaad markaa ka shakisan tahay. de wuxuu yidhi xaaska inankaygaan ka shakisanahayo, inankaygii ana wawaaw ahaana ma hayo. de haddaba nimanka waxay ku idhahdeen haddaba haddaad intaasoo dhan ka shakisan tahay orod booliska aad. odayga booliskiiba siduu ka aaday. booliskiibaa u yimi gurigii. waxay kaxeeyeen hooyadii iyo inanteedii. hooyadu dee naag caqli badan bay ahayde, ciyaaraha war miyaa lagaga soo guraya. naa ninkaagii mee ma arag, inankaagii mee wadamada carabtu aaday. maalin dambe yaan idinku odhan. markii dambe ayaa waxa loo yeedhay inanteedii baa dee cabaar xooga la saaray. inantii baaba hadashay.
hooyada iyada walaalkay dishay, iyada aabahay dishay, walaalkay mukhaadaraad bay siisay, aniga ninkaas ila saaxiib iga dhigtay, iyada noloshayda baabisay. Aduu inantii markii waxay hadashay waxa la gaadhay in la xukumo. waxaa lagu xukumay Nadia maxay ahayd inay la dilo, inanteedana 20 sano ayaa lagu xukumay. halkaas qisadeen ku dhamaatay. channelka subscribe saara, gambaleelka fara fiidana like saara.